بسم الله الرحمن الرحيم مقع اللي أيان كبلا بينا نحريستها النحريس قود أحانيد نحريسته بدل. سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. وحا حرمو وينيا أو حمان كهوفا اللي وحا كسوغان سموينك إيا أرلدا وانا أتكادها اللي حكمة بدل. له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. إساقا الله له بقرتو يدا سموينك إيا أرلدا وحنوليا أو دنسية إساقا أنا وحو البكرة. هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. وإساقا الله كان هريي إيا كان دنبين إيا كان كسر ريا وحو كرجي رسمدا عرشيجيسا دوشيسا إيا كان دوان شهبدا إساقا أنا وحو البأكسون. هو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش. الله واكن كو أبو رسموينك إيا أرلدا لحمة الموت مركز دول هذا عرشيجيسا. يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. wuxuu og yahay waxa gala arlada iyo waxa ka soo baxa iyo waxa ka soo dega cirka iyo waxa kor u fuula wala idin la jira meel aad joogtaanba allana wuu arkaa waxaad fashaan. له ملك السماوات والأرض وإلى الله ترجع الأمور. isaga alla leh boqortooyada samooyinka iyo arlada xagga alle baana loo celiya umuuraha oo dhan. يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وهو عليم بذات الصدور. wuxuu habeenka dhex gashaa maalintana dhex gashaa habeenka macnaha kala badiya wuuna ogsoon yahay waxa ku jira laabaha dadka. آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير. rumeeya allah iyo rasuulkiisa nebi moxamed oo wax ka bixiya waxa uu idinka dhigay wakiilla maamulkiisa kuwaa idinka miday rumeeya alle oo wax bixiya waxay leeyihiin abaalgud weyn janno. وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد أخذ ميثاقكم إن كنتم مؤمنين. maxaad leedihiin oo aad la rumayn weydeen alle isagoo rasuulku nebi moxamed idinku yeedha inaad rumaysaan rabbigiin isagoo idinka qaaday ballan adag haddaad tihiin mu'miniin. هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور وإن الله بكم لرؤوف رحيم. وأlle kan ku soo dejiya aayada cad addoonkiisa nebi moxamed si uu idinkaga saara mugdiyada xagga nuurka hubaal alle waa idiin turid iyo naxariis badan yahay. وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل. maxaad leedihiinna oo aad wax ugu bixin weydeen jidka ilaahay allah baana leh dhaxalka samooyinka iyo arlada ma sinna kuwiinna wax bixiyey ka hor guusha iyo furashada maka oo diraray iyo kuwiinna sidaas falay waa dambe. أولئك
أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير. kuwaasi hore baa ka sarreeya darajo ahaan kuwa wax bixiyey oo diriray kadib alle wuxuu u yaboohay abaalgud wanaagsan intaba alle waa u xogogaal waxaad fashaan. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم. waa kuma kan amaahinaya alle amaaha wanaagsan sadaqa bixin ama deynsiin cid baahan korsaar la'aan markaas uu u labalaaba ajarka alle wuxuuna siin abaalgud wanaagsan janno. يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم. maalinta aad arki mu'miniinta iyo mu'minooyinka nuurkoodu socdo hortooda iyo midigtoodaba. بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم. ku bishaaraysta maanta jannooyin beero ay webiyadu hoos qulqulaan iyagoo ku waaraya dhexdeeda weligood arrinkaasi waa liibaanta weyn. يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم. maalinta ay munaafiqiinta iyo munaafiqooyinka ku oran doonaan mu'miniinta la suga oo noo ogolaada inaan wax ka qaadanno nuurkiina. قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. waxaa la oran dib ugu noqda gadaashiina u noqda halka laga helayo nuurka waa noloshii adduunka markaas dalba nuur markaas baa xanib la yeeli dhexdooda darbi leh albaab gudihiisa yahay naxariis xaggiisa dabadda ahna cadaab. ينادونهم ألم نكن معكم. way u dhawaaqi iyagoo leh soo ma aanan ahayn la jirkiinna. قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور. waxay oran haayo waxaad sabalayseen nafihiinna ku balayseen munaafiqnimo ama ku dhicitaan fidnooyinka oo sugteen oo shakideen waxaana idin hoday hawooyin been ah jeer cadaabkii alle idinku goodiyey yimid isagoo kan hodidda iyo dhagarta badan shaydaan idinka hoday xagga alle. فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير. maanta idinkama aqbalo isfurasho idinka munaafiqiinta ah iyo kuwa gaaloobay midna hooygiinnu waa naarta waa iyada mudankiina waana halka u xun meel la ahaado. ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل. miyayan u dhowaanin kuwa xaqa rumeeyey inay u khushuucda quluubtooda xuska ilaahay iyo waxa la soo dejiyey oo xaq ah oo ayan la mid noqonin kuwii la siiyey kitaabka awal hore.
ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. yuhuudda iyo nasaarada oo muddadu ku dheeraatay sidaa darteed quluubtooda qallaleen in badan oo ka mid ahna waa caasiyaal. يعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون. ogaada inuu allah siiyo nolol arlada dhimashadeeda kadib waan idiin caddeynay aayadaha si aad u fahantaan. إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لهم ولهم أجر كريم. ragga wax sadaqaysta iyo haweenka wax sadaqaysta iyo kuwa amaahiya alle amaah wanaagsan sadaqa baxsha ama deen cid u baahan siiya korsaar la'aan waa loo labalaabi ajarka waxayna leeyihiin abaalgud wanaagsan janno. والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم. oo kuwaa rumaysan allah iyo rusushiisa kuwaas weeye runbadnayaasha iyo markhaatiyada rabbigood agtiisa. shuhaadaduna rabbigood xaggiisa waxay ka heli abaalgudkooda iyo nuurkooda. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. kuwase xaqa diida oo beeniya aayadaha yaga kuwaasi waa ahlu naarka. يعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد. ogaada inay nolosha adduunkan tahay ciyaar iyo madadaalo iyo isqurxin iyo isufaan dhexdiinna ah iyo ku tartan badsiga maal iyo carruur. كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما. waa sida roobka soo saara naqa bixidiisuna tahay mid farax gelisa talaalayaasha beeraha markaasna engega oo aad arki isagoo doorsoomayo caddaaday markaas noqon xaabo burbur ah. وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. aakhirase waxaa jira cadaab daran iyo sidoo kale dembi dhaaf xagga alle ah iyo raalinimadiisa. nolosha adduunyana ma aha waxaan ahayn raaxo lagu degmo. سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله. u degdega dembi dhaafa xagga rabbigiin iyo beer janno ballaceedu yahay ballaca cirka iyo dhulka loo diyaariye kuwa rumaysan allah iyo rusushiisa. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. kaasi waa galladda ilaahay uu siiya cidduu doono allana waa rabbigala galladda weyn. ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها
إن ذلك على الله يسير ما جرت مصيبة كد عذا دلك أما نفيهنا أو أن كورنين كتاب لوحة محفوظك كهر انت آنو كينين إفكا وبال أرن كاسوا وح أفضل الله لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور سي أيضان وغمروغون وحي إذن سيغا وقنا أيضان فرح ترارين وحو إذن سيو ألا مجعل متكستو إسلوين فام بدن الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ومن يتول فإن الله هو الغني ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد كوا بخيلطا أمرنا دتك بخيل نمو قفكي حقا كجي سدنا هبال اللي واهضن كديقتون أمانا لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وحان دبهان لصودرني رسول شيدا حجوين عدعد لنا سودجني كتابك إيا ميزانك عدالة سي أي دتك أقوة رغمان عدالة وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله قوي عزيز waxaana soo dejinay birta oo shida weyne ku jirto iyo manaafacaad badan iyo inuu alla muujiyo kan u gargaari diinta iyo rusushiisa iyagoon arag hubaal alle waa xoog badane adkaada ah ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب فمنهم مهتد وكثير منهم فاسقون waxaan dab ahaan soo dirnay nuux iyo ibraahim waxaana ka yeelay ubadkooda dhexdooda nebinimada iyo kitaabka waxaa ka mida kuwa hanuunay in badani oo ka mid ahina waa caasiyaal ثم قفينا على آثارهم برسلنا وقفينا بعيسى ابن مريم وآتيناه الإنجيل markaasaan raacinay raadadkoodii rusushayada waxaana raacinay ciise wiilkii maryam oo siinay injiilka وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها waxaana yeelay quluubta kuwii raacay isu danqasho iyo naxariis suufinnimadase adduunka jeesiga oo iska joogaan kiniisadda iyagaa unkaday oo bilowday annagu kuma aana waajibin waxay uun u faleen doonidda raalli ahaanshaha ilaahay darteed mase ayan ilaalin dowgii ay lahayd فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم وكثير منهم فاسقون markaabaan waxaan siinay kuwoodii ka mid ahaa ee rumeeyey abaalgudkooda intooda badanse waa caasiyaal يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم kuwa xaqa rumeeyow dhowra xilkuu idin saaray alle oo rumeeya rasuulkiisa nebi moxamed wuxuu alle idin siin laba saami oo naxariistiisa ah
idiinna yeelin nuur aad ugu socon si toosan oo idiin dembi dhaafi alle waa dembi dhaaf badane naxariis badan لئلا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء من فضل الله وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم si ay ahlu kitaabku u ogaadaan inaysan hayn wax ka mida galladda alle iyo in gallad oo dhan ay ku jirto gacanta alle wuxuu siiyaa cidduu doono alle waa rabbigale galladda weyn